halkani waa Somali Radio oo aad ka daawataan dalkan Ireland magaalada caasimadda waa Dublin. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka taariikhda ee dalkani oo 100 sano guuradii ka soo wareegtay markii dalkani uu xorriyadiisa ay qaateen. haddaba maanta waxaa barnaamijkeena inoogu martiya gudoomiyaha Somaliland ee dalkan Ireland mudane Cabdillaahi Dirir Xirsi. Cabdillaahi ku soo dhawow barnaamijka taariikhiga ee dalkan Ireland. waa mahadsantahay waa dhawahay Cabdillaahi waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee dalkan yimid ee ugu soo horeeyay ama dadka Afrikaanka la oran karo ee midabka madow leh ee wadanka yimid. marka taariikh ahaan dalkan maanta oo ay bishu tahay 27 waxa wadankan looga dabaaldegayaa wiilkan oo dhan 100 sano guuradii ka soo wareegtay kacdoonkii ay dadka dalkani ay kaga hor yimaadeen dawladda Ingiriiska ee 700 sano gumaysanaysay. taas oo ay maanta u dabaaldegayaan geesiyaashii dhiigooga u daadiyay madax banaanida dalka. marka bal waxaan jeclahay taariikhda inaan ka wareysano intaanaan u galin xilliga aad wadankan timid iyo muxuu ahaa wadankan dhaqankiisa. marka bal adigoo soo koobaya bal taariikhda oo aan wadnay muddo bal soo koobo bal faahfaahin naga sii taariikhda dalka. waa runtahay horta maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradaas oo kasoo wareegtay 100 sano 1916 kacdoon baa bilaabmay. kacdoonkiina wuxuu socday oo Ingiriiska la dagaalamayeen dadkuna xornimo ku doonayeen ilaa 1922 buu socdo dadku xornimo ka qaadanayay. 32 gobol buu ahaa. markaa waxaa dhacday in uu 26 Ingiriiska ka kacay 6 gobolna uu ku dhegay 26 kaasoo ay la baxeen jamhuuriyadda Ireland oo caasimadeedu tahay Dublin. anigu haddaan iska hadlo Soomaali ahaan waxaan imi bishii April 1991 meesha Shannon Airport ayaan kasoo degay. si fiican baa laygu soo dhaweeyey. dabadeed markaa magaalo yaroo la yidhaahdo Ennis ayaan waxoogaa joognay oo halkaa hudheer fiican baan aniga inaan kala nahayn inaan yaro Kuwait baan ka nimi. marka labadaasaan nahayn halkaasaan ku dejiyay. dabeedna waan soo soconay 2 wiig meelahaasaan joognay. dabeedna Dublin baan nala soo gudbiyey. Dublin baan degnay. marka halkaasaan noloshayadii ka bilaabantay. wax run ahaantii waxay nagu ahayd maaragtay dad dee iska soconayo aan meel isku hubin oo garanaysa dee ayaanu ahno nolosha oo dagaal ka soo cararay oo Kuwait ka soo cararay. marka dee meeshayna qaabishay aanu nabad ku aragnaaba meesha kalayno. marka dalkan dal nabad qabaan u nimi wayna soo dhaweeyeen. magaalooyinkoodina way nagu soo dhaweeyeen. Dublinna markaan nimna si fiican baa noola soo dhaweeyey. waa runtii waa dad wanaagsan. waayahay Cabdillaahi aynu ku noqono taariikhda wadanka Ireland oo maanta 100 sano jirsatay. waa runtii waxa weeye waa waqti dheer. marka adiga ogaanta jaamacadda wadankan baad kaga baxday. taariikhda bal ka waran taariikhiga ah maalintan oo kale dadka Irishka maxay uga dhiganta? waa maalin ku weyn dalka kan. dee sidaad u aragto dhiig baa ku dhacay. dad badan baana ku dhintay. haddii aad daawato waqtigii taariikhdii dadkaas halgamayeen filmada wixii ka dhacay aflaan baa laga qabtay. dadka wax ma dhaafaan oo taariikhdu way qoran tahay. marka dee aad baad u jiriircoonaysaa. waliba waxaan aad uga sii jiriircooday markii maaragtay heshiiskii Ingiriiskii yidhi ma garanaysaa intaasaan ka kacaya Irishkii isku maaragtay isku jeestay ay ku heshiin waayeen wuu ka wada kacaya iyo yani intanaan horta qaadanayna iyo wuu ka wada kacaya ay u kala jabeen. marka taasaa jiriiraca weyn gelisay oo dagaal sokeeya meesha ka dhacay oo meeshan Dublin aad arkaysaan yani Boston weyn aad arkaysaan GBO-ga kan dagaalka ka dhacay iyo wixii ku dhacayay waxay ahayd maaragtay waxyaabo la yaab leh. anigoo taasaa markaa igu sii naxdin weyne igu sii maaragtay dagaal sokeeye dalkeeni baan kasoo arkay. markaa halkan dagaalka sokeeye ka dhacaya aad baan uga jiriircooday. waa sidaad arkayseen waa tii xabadda la isu gashaday Dublin gudaheedii ee GBO-gii baa xitaa dhulka lala simay. sector weyne College Street ku taala. College Street baan ay ka bilaabantay. dabadeedna kala jabkii ka dhacay waa kuwii maaragtay
dee dagaalkii sidii u socday waxay noqotay in dagaalkii socdo dabadeedna dee meel gobonnimo loo halgamayo qaar ba garanaysaa leh war bal aan nabad ku raadino iyo qaar le aan qoriga ku raadino ayaa markaa loo kala jabay markaa adigu waxa guulaysatay qoladii lahayd waa intan aan qaadano jamhuuriyad intaynan horta aan qaadano oo intan markaa sidana dalkana ku xoroobay dhiig badilsa waa ku daatay ragga meesha magaalada ku sawiran aad arkaysaan waxa weeye waa raggii dagaalka ku jiray anigu waxaan gaar ahaan ula socday oo buka aqeeninaya Michael Collins oo kamid ahaa markaa dadkii markaa qabanqaabiye ahaa oo Dublin Castle halkeedan markii calankii Ingiriiska la rogayay calankii la saarayay Irishka taagina ya oo lahaa tanna waanu taaginahay u yiri taasna ma garanaysaa ka yara markii tanna waanu taaginahay cilmi koopa soo waxay dawr marka sorry marka waxa weeye ninkii sidaa usoo halgamay Michael Collins reer koob buu ahaa dagaalkii Dublin markii la iskumaaday isagii kooxu wato way carareen dhufays baa loo sii galay meel dhexdaas intaanay koob gaadhin ninkii kolonyadii la socoto 4 baabuur iyo saa isu daba jooga meel sare inta loo baxay buur ayaa jid hoose marayeen dub meesha lagu fasaxay kii ninkii lagu jiro taas aad maanta ugu xumaad nin xornimadi wax ka doorayay oo markaa la dilay marka wax kale ma ahayna waxa weeye meesha marka dagaal yimaado marka arrini timaado dadku iska soo horjeesanaya marka waa Irishkii lahaa dalka weyn oo Ingiriiska waxba ugama ogolin iyaga iska soo horjeestay iyo kuwii lahaa war bal horta ninkan Ingiriiska way naga xoog weyn intaan qaadano so yani marka مثلا Collins Street hadii aan martay imika xuska kan boqolka sano waxaad arkaysaa niman badan oo ku sawiran like O'Connell like Michael O'Connell maxaa kula Pierce maxaad arkaysaa Michael Collins oo inay ku sawireen mariye maxaad darag badan oo dhiig u daadiyay meesha okay soo la socono maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Ireland Michael D Higgins wuxuu u bax dhigay beerta loo yaqaano xusuusta ku taala magaalada Dublin waxaana ka qayb galay in ka badan 700 oo qof ah qoysaskii ay ka tafiirmeen nimanka geesiyaasha ah ee dalkan Irishka u dhashay halganka ka qayb qaatay marka role intee leeg ayay ku lahaayeen nimankaasi faamiliyadu xukunkii muddadaas soo jiray adiga ogaantaa dee nimankaas halgamayaal bay ahaayeen waa nimankii dee qoysaskooda ahaa tafiirtoodii way xasuusan sanad guuro waa la xasuustaa waa filaya madaxweyne kasta intaasoo goobad baan maaragtay usoo joogay TV-ga kala socday madaxweynaha dalka ama Michael D Higgins ahaa ama kuwii ka horeeyay ahaadeen waxaa jirta beerta geesiyada iyo beerta xusuusta iyo aan ka dhex galo hadalka hadaynu si kala u dhigno xafladan oo kale sida maanta ku bilaabantay waxay sheegeen ilaa iyo maalin 29 bisha 29 bisha inay barnaamijka bandhig soconayo marka sidoo soconayaan bay adigu ogaasha bandhig waa ma ay ku xusaan halkan kale ugu xusaa Dublin mise magaalooyin kale wallahi horta Dublin baa ugu weyn 3 cashay lagu soo socdo lagu soconaya ma garanaysaa dhacdooyinkii oo xuska dhacdooyinkii oo laga dhigayo halkan meesha beerta geesiyada tolmiya lagu beerta geesiyada filaya oo ku taala Kilmainham dhinaceeda ku taala oo beer weyn markii geesiyada la xusayo halkaas madaxweynaha iyo dawladda ka socda ay yimaadeen halkaas ay u bax dhigaan beerta xusuusta halkan Collins Street madaxeeda ku taalana iyana waana dhigaado waqti meel dagaal ka dhacay hayro meesha xusuusta leena dagaalku wuxuu u badnaa dagaalkii Spain horta meesha ka dhacay wuxuu badnaa Collins Street buu ku bilaabay marka beerta xusuusta waa tan koon laakiin meesha weyn ee geesiyada lagu xusaa waxa weeye waa beerta weyn ee Kilmainham Dublin 8 dhaadhicay xaga ka xigta okay waayahay inagoo go'goosnayna barnaamijyadeena waxa aan Cabdilaahi barnaamijka labaad inagoo ma qaadi doona waxaan kaaga tageynaa sida iyo nabadgelyo waad mahadsan tahay وما سنت عبد العزيز انتين امين انتين مش شفتها هذا ما سنتين ثانك يو فيري ماتش هذا برنامج